dadweynaha ku dhaqan degmada Garowe ayaa saaka u diray salaada Ciid al-Fidriga dadweynaha shaqooyinka degmada Garowe uu ku tijiyay garoonka weyn ee degmada Garowe lagu tugo salaadaha ciidaha dadweynaha saaka ka muuqatay dareen aad u farxad badan isla markaana isku salaamay Ciid mubaarak iyo Ciid caafiya isla markaana ku labisnaa dad aad u qurux badan ayaa aabba iyo hooyada ay daadahanayeen ilmahooda si ay uga qayb qaataan farxadda ciidka heesaha maraan mikrofoonka dadweynaha reegada ayaa waxa duco iyo hambalyo u diray ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan haweeneyda waxa ka munaasabatan الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مقعد عبد الكريم شاعد دعالي هلكا waxaa ka salaamaya dhamaan dadka muslimiinta meel kasta joogan khaasatan inta magacayga iyo muuqaalka garanaysa ee ku kala nool dhamaan daafaha caalamka salaanka bacdi waxa weeye ciid mubaarak baan leenahay meel kasta joogan waxa weeye maanta halkan aan ku soo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. waxaan salaamayaa islaamka oo dhan waxaan aad u sii salaamayaa Soomaaliland waxaan u ducaynayaa dadka muslimiinta ah ee cadowga leynaya waxaanan u gaarsiinayaa kuwa muslimiinta iyagu istilay anoo magacaygu yahay Axmed Cabdi Suleymaan Nuur kuna taqan degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag waxaan salaamayaa dhamaan muslimiinta dunida meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliland ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed sidoo kale maayirka degmada Garowe iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka waayeelka cuqaasha iyo waxgaradka degmada Garowe iyagoo ka faa'iideysanaya chance munaasabadda ciidka waxay tacsiid tiiraanyada u direen ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay Saleebaan Yuusuf Xaaji Caali habeennimadii xalay ku geeriyooday caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ilaahay waxa uu bareeyay ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday samriyo iimaan ka sii بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بأمرك ورم حله إن سؤال يسير عند الفكر ذا نسوق لنا بشير رمضان إنه نقول نوضب نكون تكني جيد أن برحد أن تكمل كرادك أنت مكان كبر وحنا كان قطع السيدين يا بوليسكي وكبر يوضي سليمان يوسف حاج الدعاء وحرس النحل اللي هو بيريوضي خبر العيد مبارك بعد العيد إن شاء الله وحنا تعسوق لنا هذه نواح ولي دينار في النظام شيء بعيدي تدمر كرامة جيد مرتبي الله ولا حرمستين مرشوم سليمان يوسف حاج الدعالي وحلف كريودي مقالة هرقيس كما في تي في قناة جمهورية الصومال